waxay noogu martay gudoomiye ku-xigeenka iyo talada dalka iyo kulmiye maxamed kaahin axmed gudoomiye marka hore kusoo dhawo barnaamijkan ugu horeyn haddaan ku weydiiyo xisbigiinu kulmiyahaan maxaa kaga duwantihiin xisbiyada kale بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بنا سلام يا برنامج كنا يدكم على قناة ما تعرف حفيز كيف الموضوع تمام waxaan isleeyahay xisbiyadu waxay ku kala duwan yihiin barnaamijyadooda siyaasiga way ku kala duwan yihiin qaab dhismeedkoodana maxaan ku dhahdaa way ku kala duwan yihiin waxa aan isleeyahay xisbiga kulmiye wuxuu kaga duwan yahay qaab dhismeedka kaga duwan yahay waayo wuxuu leeyahay hay-ado maxaan ku dhahdaa dastuuriya oo kala sarreeya oo uu ugu horeeyo sarreeyo koongareska xisbigu uu ku xigo golaha dhexe oo uu ku xigo guddi fulin wanu kaga wada miisaan badan lahay intaa koongareska iyagu kulliga googa qoftuu gaaraa golaha iyaga dhexe waa 200 oo qof guddigayga fulintu maxaan ku dhahdaay waa tiro ka badan guddiyadooda maxaan ku dhahdaay fulintu waxaan leenahay hoggaan ka ballaaran maxaan ku dhahdaay hoggaanka xisbiyada kale waxaanu kaloo kaga duwannahay xisbiga kulmiye wuxuu leeyahay barnaamij siyaasi ah kaasoo doorkii hore kusoo galay ololihii doorashada muddada imika 4 sannadoodii googo-ah iyo barhka ah xilka xukuumadda wahayana wuu ku hawlgalay waxaa hagaya siyaasadda xukuumaddu waxa weeye waa barnaamijkii siyaasiga ah ee xisbiga taasaanu kaga duwan adigu xisbigan kulmiye maxaad shaksiyan ku dooratay maxaad ka haynaa والله حسبك السياسي وحن كدر تقف هذه تير حسبيات السياسي وحاول تقدر تا مركا وأركو برنامج كحسبية حنقول هذا دستور كحسبية هي أساس وإن لقدر تا مين هي أنا بحنقول هذا وليها سياسي ما نبي حسبك كمان بكم بدع كم نبكي ولا كم نطالع وأنا كسي بدع dad badan oo Soomaaliland adiga maxamed kaahin ahaan way ku yaqaanaan laakiin qaar badan oo aan ku garanayn baa jira bal hadda kuwa isku sharaxo adigu qof aan isku sheeg والله الكاد بدل بحال كل هذا سياسة السوتري بدل بحال كل هذا التلفزيونات بحال كل هذا كسهر اللي وحسبة إنك هذا على سكوت المعلومات ده كدور أيام كانوا مش يمشوا وحيلتها هي ورك فلان بحال كل هذا ويعني باك جراوند كل وحلا يا أنا باك جراوند كده وحكم دحنا بحال كل هذا يعني سكر إذا بدي سوماليا هالشري أيام كم دحنا حلقي بحال كل هذا نظام كيك التلسك على تركي الصومالية وكعب ورمي دتكي بحال كل هذا أذكر ربي الديدي أيام كم دحنا دتكي حسبي سنة أساسا بحال كل هذا كم دحنا حبني بوري بحال كل هذا سنة حلقي التلاعب أي تلاعب أنا كم دحنا شلت حبني دي بوري ولا إما كانوا قفك قرية كنور أي دحين الهرشينة محمد علي أحمد نجح أنا سليمانية أنيقا حلال فربنا ما كسر قبتي جنرال سيكرتري ما كسر نقطي تليع إذا ما كسر نقطي أنت درك كسر نقطي وسير بنقطي دولة تقول رسي وسير كعشان لقى أنت كده بيسي وردي يحدي رولياش السياسي أنت كم بتاعها مكان حكم بتاعي حسب الكلية حلال بدل ما كسر قبتي مكان حكم بدوني كحيك كمان أدوس حاجة عيدمات كسوق الشمس كسياسة قرمة سوق السياسة الشخصية قلت أقول لك محل كل هذا أسرع وحاها قرب السياسة سي وكذا EBRB وكل توريا كسر تقالتي كنت أقول حكي ترجمية وتشدوني السياسية هو بالشيء كسر ترجمية اللي لا يحل قد وحنا كسر السياسة ودول سيدي تقبلوا بيدي wax cilmi siyaasadeed ma baratay oo ku dheeraasay waxaan ku dhahday culumta siyaasiga iyo militariga iyo waxaan ku dhahday political science ku meel badan bay isaga adeegaano waxaan ku dhahday ay isaga kulmaano waxaan ku dhahday intii dibadda la joogana dayada ku jira in waxta gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye
dadkeena dhibaatooyinka haysta waxaa kamid a qabyaalada adigu miyaa bixisaa qaadhaanka toonka ما قارن ما بحياة لكن ما لو بدك قارن ما بحياة قارن قبيلك وقارن كمكتب ما بحسها مكتب بدك الصوماليات بكلم بتوصل يوصل يسوق بأرجل يسمع marka ma isleedahay way qurux badan tahay qabiilka laftiisa ba hal dastuurkeena lagu daro dadku waxa ku qaybsan si sax ما يعمل قوات لنا أيام حاكوا هذا قبيل الدستور كقلق قبيل اللي قبل ضد قباوي سياسيين الشكل وأي حاكوا هذا وحلا هذا سدوا بشدة هرمون وكان هناك قبيل كما هو حاكوا هذا مدفر بدل يمكن البارعي وصيب بدل الله بعدين لأن سيحي بمدعاة لكما خيسا إياك ضدك الصومالي دا الشيخ تبع حيستا إياك إنكو غير صومالي لا دي ما حيستا قبيلكم حاكوا العداية وكمل كمانتا لنا يعني بإني أديك سدومانتا واحد كورن كان قد مصدق كيسا الموضوع إنه دافع سياسة الصومالي سيون بدو جدا marka ma garanaysaa tirada gobolada Soomaaliland Soomaaliland gobolladeedu markii hore 6 gobol baa ahaa 7 gobolna waa lagu kordhiyay hadda ay ka tiraan 13 gobol bedka Soomaaliland بدك Soomaaliland hadda ay korka kama hayo laakiin كل واحد الدروس ترى كسر لقينا أنكم مكان أرتدى هنا Soomaaliland لحظة لكن هذا دائما كأس حد يدلت تايم بقربه بوقت اللي كنت أنا وقدومي لما يربض النور Soomaaliland وين تهريبا سببها وقوع عن تهريب ترى حكميضة الشغل عام أنت ترى ذا كيسين إمسا شقايا أولتين قلت التهريب تواعي شرتها وفينومينا وآثار أنا إنك أقول إنه بكم من غير Soomaaliland عالم كبير إنه حاكون هذاي ونابو هذاي قارة أفريقيا تاي هذاي إيشيا تاي هذاي لاتين أمريكا تبغى فأنا بدي بكتشولا وأنا أقرر ما صرت أقول بدنا كذا إذا بدك وحيك وحاي المرسية كنت تعمل حاكون هذاي شقلاء وأيتشتا قار أم حاكون هذاي باهي قبل تهريبان ويتشتا أما قيسس لنا كذا شيء أما قار شقة يستوي شقة وديك تهريبان ويا حسان حسب كل ما ينتهي بكم ثلاثة هاي سي لو كرديو ترى أما شقة أبورك دارك وحب كل ما أنتي ومركو حلقة قتيل كل ما وحب ويبي شقالها دارك ترى محاكول هذاي شنكن أوقف أيوه هذا يمكن سدح شباب إنك بدل أيام الله والله ترى ده محاكول هذاي شقالها marka tuman shaqaalaha abuurtay dhowr iyo toban shaqaalaha baa la abuuray marka haddana marka loo eego dalka iyo populationkiisa waa tiro yar haddana dowladdu tirada ay abuurtay marka la eego waa tiro aad iyo aad u fara badan oo lama helayo maxaa dowladaha marka la eego waxa weeye marka imika ilaa 15,000 tiro ku dhow marka shaqaalaha la kordhiyey ee percentage boqolay lagu xisaabiyo waxay noqonaysaa in ka badan maxaan ku rahdaay 200% ayaa tiradii la laalaabay tirada markaa la laalaabay haddana kama tarjumayso baahida maxaan ku rahdaay bulshada dhexdeeda taala laakiin dadaal intaa ka dadaal fara badan baa lagu sameeyey in la abuuro maxaan ku rahdaay la kordhiyo oo la abuuro maxaan ku rahdaay kor loo qaado maxaan ku rahdaa shaqaalaha dalka heerka literacy-ga ama qoraalka Soomaaliland halkee baad ka soo qaadeen halkuu saymanka maraya macnaha in sababta wax la akhriyo in sababta aan soo waxba akhriyo wallahi tiradaas ma hayaan imika laakiin waxaan qabaa inay mar walba badan yihiin tirada waxna qoran waxna akhriyo laakiin qiyaas ma qiyaasa hadda qiyaas aan inta ku fadhiyin research iyo baaritaan dusha lagama qiyaasi karo لكن waxaan aan ognahay maxaan ku rahdaay in dugsiyada aad iyo aad tiradooda loo kordhiyey waxay boqolkiiba misaad kordhiseen waxa
haddaad wasaaradda qorsheynta ay tagtaan intii kulmiye uu xilka hayay muu jirin dalka waxaa la yidhahda national development plan qorshaha horumarinta dalka ma u jirin intii kulmiye xilka hayay waxaa la sameeyey ina akhrideen iyo kala moojaan waxaad kasoo helaysaan wasaaradda qorsheynta waxaa la sameysay wasaaradda qorsheynta waxa ay sameysay iyadoo la kaashanaysa wasaarad kasta qorshaha horumarinta dalka ee 5 sannadood 2012 ilaa 2012 maxaan ku dhahdaa 16 wax kaloo ay sameeyeen oo kulmiye uu sameeyey xukuumaddiisu maxaan ku dhahdaa gobol kasta oo dalka waxaa loo sameeyey maxaan ku dhahdaa regional development plan qorshaha horumarinta ee gobolka dabadeedna kaa waxaa laga helayaa maxaan ku dhahdaa waxaa laga helayaa maxaan ku dhahdaa wasaarad kasta horta qorshuhu marka hore tilmaamaya maxaan ku dhahdaa baahiyaha mudnaanta baahiyaha maxaan ku dhahdaa dalka heer gobol heer degmo dabadeedna wasaaradda waliba maxay qorshaysatay 5 sannadood ee maxaan ku dhahdaa qorshaha ku jira maxay fulisay maxaan ku dhahdaa maxaan ku dhahdaa مثلا هداد أكتر مولود الشيخ سكول هذا برايمري سكولز إلا يتردد أرتدي كوتشستا أيام حانكور هذا كوبارن رجل أنت اللي يرد حكر القرآن الله بيدتي بيوك القرية دقم وقرية سكندري سكولز قرية سكول هذا فصل حول قرية marka si loo kordhiyo adeegyada waa la qorsheeyay qorshahaasi dalka kuma jirto waxa uu jira intii uu kulmiye xukunka hayay oo kaliya ayuu jira meel laga raaca dalka iyo meel maxaan ku dhahdaa loo socday national development plan waxaa ku qoran inay wadankeena ku jiraan masaajido madax bannaan ama macnaha masaajido inta la dhisay wasaaradda diinta uu qaatuna aanay saameyn caynkaasa ku lahayn maxaa bal arrintaa ka sheekay doorso waxaynu leenahay arrintaa wasaaradaynu leenahay masaajidada maxaan ku dhahdaa qaabka inoogu yimaada ama aynu inta dhismahoodu inoogu yimaado waxa weeye qaar waxaa dhisan dadka dalkaa dhisan hadday ganacsatadiisa tahay haddii ay tahay cid tabarucaad gelinaysa in yar iyo in badan intaba ma la dhisaa masaajido maxaan ku dhahdaa kaalmo inoogu yimaadaana way jiraan inta waxaan filayaa ayaan wasiirka awqaafta uu ka warbixinayay amalana wuxuu sheegay in ay u wada tirakuuban yihiin masaajidada dalka jira waxyaabaha ugu badan ee marka noqoto xagga caqiidada inkastoo dadkan wada muslimin boqolkiiba boqol muslim sunni shaafici weli bay yihiin haddana waxaa jira waxyaaba yareeroo aan sidaa burin loo kala duwan yahay tusaale ahaan qabashada mawliidka oo maalin qaran wadankeena idinku xisbi ahaan waxaad rumaysantihiin inay tahay maalin qaran mise inaa la qaban baad rumaysantihiin horta waxa weeyaan diin cusub imika inoo waxaynu nahay dad maxaan ku dhahdaay ku dhashay intaynu soo jirnayna diinta islaamka haystay diin cusub oo imika inoo timiyo badaali cusub oo imika inoo timina ma aaminsan mawliidka nebiga waynu qaban jirnay xusbi ahaanna waanu aaminsanay anugu qof ahaan baanu aaminsanay in maxaan ku dhahdaay mawliidka waa maalin qaran waa maalin aynu maxaan ku dhahdaay u dabaaldegno marka waxay la tahay muran kama jiro arrinkan gudoomiye haddana xagga caafimaadka tagno imise hooyo oo soomaalilana ayaa umuraac u dhinta sanadkii ama aada ogtihiin boqolkii kun ee haween ama imisa umuraac u dhintay wadankeena wallahi adeega caafimaadka waa la kordhiyo aada baa kor loogu qaaday laakiin waxay cid waliba qarsan tahay inaanay haddana heerkii la doonayay aanay gaarsiisnayn oo marka arrinkaa laga hadlayo waxa weeye tuulo walba in uu jiro adeeg caafimaad xirfadla caafimaad aada bay u korneen m c h-yada dalku
marka waxaad daatadeeda oo dhan laga helaya maxaan ku dhaha taas waxa weeye waa specific maxaan ku dhahdaa technical data oo hadda jeer waxaa gacanta ku haya maxaan ku dhahdaa wasaaradaha laga helaya marka iminka maxaan ku dhahdaa buugaagta oo dhan way ku qoran tahayo maxaan ku dhahdaa caafimaadka maxaan ku dhahdaa waa laga helayaa maxaan ku dhahdaa waxay qorsheeyaan in ay maxaan ku dhahdaa aada iyo aada kor ugu qaadeen waxaana maxaan ku dhahdaa aan la isku dafiraynin in caafimaadku maxaan ku dhahdaa uu aada iyo aada uu uga fiican yahay xeerarkii markii hore ayaa maxaan ku dhahdaa ay marisay masalan bolodijoco kale haddaa soo qato maxaan ku dhahdaa gabilayo kale waa 6 mch baa ku yaala degmada gabil balgubadloo kale waxaa ku yaala maxaan ku dhahdaa gabile waxaa ku yaala 6 mch 9 health board baa ku yaala maxaan ku dhahdaa cusbitaalada publica laba maxaan ku dhahdaa ku yaala way jirayaan umraaca dumarku wuu jira caafimaadku filanna dhaqaalaheeda weli ma wada lihin laakiin waxaan aaminsanahay iminka in xoog loo kordhiyey oo meel aada iyo aada u fiican u maraayo xisbigiinu wuxuu bilaabay markay noqotay siyaasadda arrimaha dowladda waxa uu dhahday engagement policy ama siyaasadda furfuran siyaasadda furfuran ee xisbigiinu sameeyay bal hadda qeex dadka si fiican way fahmayeen siyaasadda furfuran ee xisbiga kulmiye uu soo jeediyo kuna socdaa waxa weeye waxaynu nahay dal xorriyadiisi dib ula soo noqday oo madax bannaan oo nidaamyadii iyo haykaladii dowladeed oo dhamina ay u dhisayeen waxa ay nala shaqeeyeen bulshada caalamka ay nala shaqeysaa hadday dowladaha maxaan ku international community bulshada caalamku waxay nagula shaqeeyeen dowlad ahaan bay nagula shaqeeyeen hase haatee waxaynu wada ognahay inaan ilaa iyo imika somaliland aan layna aqoonsan oo dal la aqoonsan yahay oo golayaasha caalamiga ah aynu xaqa u leenahay maxaan ku dhahdaa ka tirsanay inay leenahay sida jumciyadda qurumaha ka dhexaysa sida ururka maxaan ku dhahdaa midowda africa iyo kuwa kale ee maxaan ku dhahdaa caalamka ka jira taana waa la wada ogyahayo waa arrin ku luntay midnimadii 60kii xisaab la-aan qadarin la-aan taariikh luntay oo midnimadii 60ka aynu ka mid noqonay 30 sannadoodna aynu ka mid ahayn dowladda la odhan jiray soomaaliyeed ayay ku dhex luntay aqoonsigeena siyaasadeed aynu halkaa joognay halgan dheer oo muddo dheer oo nafa fara badan loo soo huray dabadeed oo taliskii maxaan ku dhahday dictatorka ah ummadda lagaga tuuray xorriyaddeedii lala soo noqday ayaynan weli waxaynan haysanin aqoonsi siyaasiya aqoonsiga siyaasigii wuxuu nagaga dhex jira nagaga dhex lusan yahay waxaa loo yaqaano da bulshada caalamka international community-ga hadday tahay qaaradda africa hadday tahay caalamka maxaan ku dhahday yurubiyanka iyo maraykanka haddii ay tahay maxaan ku dhahday dowladaha jaamacat alcarab hadday tahay qaaradda eshiya ummadaha ku nool bacdama aqoonsigeena aynu ka sugayno ama la rabo inaynu ka helno bulshaweynta caalamka somaliland waa ina la timaadaa sideebaa su-aasha hortaale waxa weye qaabkee iyo sidee iyo sifahee ayaa looga helayaa maxaan ku dhahday loogu qancinayaa inay arrintaa looga helo arrinkaa siyaasadda furfuran ee kulmiya uu hogaaminaya waxa weeye in caalamka aynu si furfuran si maxaan ku dhahday barnaamij siyaasiga ay ku salaysnaatay siyaasadeena kharajigu oo aan meel ku xidhnay waayo haddaad meel ku xidhan tahay bulshada caalamka meeshii ay kaa soo gelaysana waad xidhan tahay halkaad adigu uga bixi lahaydna maxaan ku dhahday way xidhan tahay marka siyaasadda kharajiga xisbiga kulmiye waxa ay aaminsan tahay kow in jiritaanka qarannimada ummadda reer somaliland ay tahay mid muqadasa oo aan cid gorgortan loogala geli karaya aanu jirin laba
iyadoo taa saldhig ka dhiganaysa in ay aragti iyo fikir furfuran oo caalamka qancinaya in ay uga doonto waxaan ku dhahdaye aqoonsi laga siiyo. siyaasadda furfuraneed ka warrameysaa waxay furtay in wada hadlo la galo Soomaaliya maxay soo kordhisay? waxa ay soo kordhisay marka ugu horeysa Soomaaliya waa dalkeena Soomaaliya isku ahna waa ku waa laba magac iyagu imika jimciyadii qurmaan ka dhaxaysa kursigii inaga dhaxeeyay iyagu maanta ku fadhiyaan. waa saddex inaku ma lihin imika dal la aqoonsan yahay. waa afar meelo fara badan iyo dad fara badan marka maxaan ku dhahdaay lala kulmo ilaa dowladihii u horreeyay ee Somaliland dowladii u horreeyay Cabdiraxmaan Axmed Cali madaxweynaha ka ahaa دي محمد إبراهيم قال مدحوينها كاها داير ريالتيو كاها أحمد سلالي بجوغا تنو محمد كل هذا يكي يعني ما يرفع بدل مركز تقولون برشادة عرب goobaya imika Soomaaliya waxaan ay gaaradu tiraahdo out of the ash dambaska dhexdiisa ayaa la doonayaa in dowladda Soomaaliya laga sameeyo waayo waynu ognahay waxaan ku dhahdaa maanta ciidamada waxaan ku dhahdaa amisom la yiraahdo haddii la yiraahdo galabta ha soo baxaan xasan sheekh maxamuud inuu iyaga raacan mooyaane madaxweyne noqon maayo
أحمد سيلاي عد كويلا لسهل كان بمجرد الداهر يالنا عد كويلا لنجرين محمد الرهين عقال عد كويلا لنجرين عبد الرحمن أحمد علينا عد كويلا إحرام لأن حرست سنة كورا عبد الرحمن محمد عقال وضع وحوية مركا عد للحريرو وكوحها سيارها قبليها يسوي منايا سيارها قبليها محاكل هذا يسد لايا إيا كوحة كلا نظامية كلا إيا محاكل هذا سيارة كلا مثلا وأنا تركت تيار كسعدا لكن إنه في مكان إلا يهدو إحنا بالله استعمالها officially محاكل هذا إذا ما لبى بيش تشوفها ترى هذا مدحبان هاي وحين تاكل بدنا الله يحدد كلا وحوي إلا يمكن سؤال الحكومة العصر يصير ورنا وقويت العصر إن قبائل تلك الصومالية تشوفها أي قابل اعتراف كذا سواء قبيل كم اعتراف كذا وكنت أجري كذا لكن اعتراف بشدة عالم كهرت إذا أتكلم شكل جميل يصير عندنا ولا استبعد لو عدة لكن برنامج اسمه لو بقول شنو تضاعف الحاجة وحيب قبيل كل سنة أيضا توقعت مكا ويران بيل كلمة كويدي وحيلتها برنامج شنو بقول له ريت تضاعف كذا سنة قبائل كوسع مثلا واحد كه الشعب حنقول هذا واحد اعتراف الكوكا أنا وحنقول هذا يشتري معي سيدا والنقبانية سيدا يهينا يقروا على وضعي قارنايا حنقول هذا واحد معناه هو إنه يملك كتير برنامج كنا واحد مع اعتراف الدولة دولة اعترافتها. أوكي. بود كين واحد سمستي شو بلان مثل واحد سمستي كونفور قلبي سومالي جيبوتي بقولوا ده واحد سمستي سومالي لا. إنك أنت سأرن حول الله تعالى ما هو حنقول هذا سقاط أو يصير يوصل إلى يجري وطالع سواء الآن حنقول هذا السبب يمكن أو تفحيته إن الكوالة قاعدة كسر سواء لأن ما طالع أو ما طالع من كمان حتى لو حاجة كمان ده هوصل لهم ميزانية الوطن كهذا واحد لو بحياة مشاركة يخرج كدولة كأهانا مركا سيدات ورقة تاني مشاعر حرمانيات وصل ينكروا ميزانية الدولة ده محنقول هذا يحسب الكلية مثل تركن تنام اللي أنا واحد يعني ميزانية وجود بس سنة كان يحسب الكلية الدولة ده يسوي شيء السنة حوالي وراء ولا كنت $1,000,000 شغالها هو الكلية حسب الكلية برنامج كيس السياسي كهذا كتير إن ترى شغالها iyo tirada ciidamada qalabka sida ee noocyada ciidamada qalabka sida ee kala duwan mushaharkooda la kordhiyo boqolkiiba qurbis labaad maxaan ku dhahdaa haddana lagu sameeyey marka mushaharka dee wuu kordhay laakiin mushaharka maxaan ku dhahdaa barnaamijka siyaasadeed iyo siyaasad dhaqaale ee dalkuna maaha oo keliya in maxaan ku dhahdaa la soo saaro dhaqaale ku salaysan in mushaharkuna lagu sameeyo wuxuu leeyahay horumarka qeyb buu ka yahay ilo qeyb wanaagsan buu maxaan ku dhahdaa ka yahay oo ah caafimaadku ka yahay biyuhu ka yahay maxaan ku dhahdaa waxbarashadu maxaan ku dhahdaa ka yahay beeruhu ka yahay xanaanada xooluhu ka yahay barnaamij ku filan oo macquul ah ayaa maxaan ku dhahdaa barnaamijyada horumarinta kaga jira laakiin dhaqaalaha iyo miisaaniyadda aad kordhiseen dhammaanteed dadka ayuunbay fuushay marka si kale loo dhigo waa dhammaanteed kastamka kasoo baxda ma jiraan cashuuro beriyo soo qabay wax soo saarka waddankeena marka beeraha lasoo qaato kale tusaale boqolkiiba 10 maxaad ku soo kordhinaysaa mushaarada horumarineed دكتور محمد كل هذا مشاريع من السوق في الرحلة يمكن تجيب له كل قطعة تدا يمكن وزارة محمد كل هذا غيره وحساسات في يمكن محمد كل هذا تساعد مسطن بيسوق لسه ده مسطن بقى زي مسافر ضربة ما قلت لك الصلاة سؤال محمد كل هذا ماشي تعلمها لكن هذا ده رسمي دوني سنة قارتان waxaad ka soo helaysaan maxaan ku dhahdaa waxaad ka soo helaysaan wasaarad walba markaad tagtaan marka aad eegto maxaan ku dhahdaa
wasaaradda maxaan ku dhahdaay beeraha waxa ay leedahay maxaan ku dhahdaay barnaamij dhan bay leedahay waxa ay in badan bad kordhisay wax soo saarka maxaan ku dhahdaay beeraha iyadoo keenaysa maxaan ku dhahdaay tababar lagu tababarayo dadka in ay qaabkay beeraha u fidinayaan wax soo saarka u kordhinayaan qalabka u sahlaya maxaan ku dhahdaay inay u sameynayaan maxaan ku dhahdaay qalabka u sahlaya in ay beeraha maxaan ku dhahdaay fidiyaan maxaan ku dhahdaay projectska maxaan ku dhahdaay ay fulinayaan wax soo saarka maxaan ku dhahdaay ay sameynayaan miisaaniyadda maxaan ku dhahdaay intay ku kordhinayaan ee iyagu wasaaradda beeraha ay u hayaan oo aragteenna maxaan ku dhahdaay laga soo saaray waxay kaloo leeyihiin inay maalgelin shisheeye aada ay maxaan ku dhahdaay u raadiyaan iyaguna inay keenaan hadday caafimaad tahay hadday biyo tahay hadday maxaan ku dhahdaay beeraha iyo wax soo saarka tahay hadday maxaan ku dhahdaay kalluumaysiga tahay hadday waxyaalahan oo dhan ay maxaan ku dhahdaay ay tahay haddaan si kale ku weydiiyo xisbigiina kulmiyo waxaa lagu yarxantaana team republican ama aada xagga maalqabeennada kaaga dhow yihiin oo tusaale ahaan wax walbaad baraagka taas garaynaysaan halkii public ay ka ahayd balka hor way kuma dhawa xisbigan kulmiya dayartu u dhowi laakiin maxaan ku dhahdaay de waa la sameeyaa waxa la dhahdo privatizationna waa la sameeya waxa la dhahdo nationalizationna waa la sameeya wixii la isdhahda danbaa ku jirta de waa la sameeyaa dabadeedna maxaan ku dhahdaay ciddii loo birgarayay iyo ciddii heshaana maxaan ku dhahdaay de nasiibkooda qaata way tusaale ahaan ugu yaraan 2 shirkadood oo kamida kuwa wadankeena lacagta daabacda maxaad ka haysaan damaanad in lacagta ay daabacanayaan ay saadka ama iidaha waxaa la isugu diray xisbi ahaan maxaa baanka Soomaaliland ka ogtiina damaanada ka yaal horta saadka iyo iidaha iyo lacag baa la daabacdaa labadu waa kala jaad lacagta la daabacdo waa in nin mashiin guryaha ku haysto da lacag daabaca taamaha in madda lacag daabaca laakiin tan la isugu diray electronic maxay ku doontaa tii la daabacay tii la daabacay maxaan ku dhahdaa de $100 baan haystaa $100 kan ku shubto inuu mar hadhowta de intisaadka wax kaga iibsada waa arrin bilow ah oo maxaan ku dhahday u baahan daraasad fara badan in laga sameeyo central bankeennuna weli aanu awood u lahayn inuu maxaan ku dhahday uu controlo waayo transactionka lacagtu sida ay iminka noogu soo gashaan iyo sida maxaan ku dhahday marka officially de dowladuhu ay u kala shaqeeyeen waa kala jaad laakiin ilaa iyo iminka haddana waa waxaynu inaku gacanta ku hayno oo lacagteena sarifkeeda ilaa iyo iminka de waxa gacanta ku haya central bank ganacsatadu ma ku hayso laakiin waxaa ku dhacay qiimo dhac baa shilinka Soomaaliya ku dhacay 4 sanadoodii barkii aad joogteen tusaale ahaan wuxuu ahaan jiray 6,000 oo shilin 6,500 iminka halka uu ka maray 7,000 ilaa 7,500 way dhacdaa mararka qaarkood xilliyo muusinada qaarkood masalan waxa weeye transactionka lacagtu xilliga arafooyinka ay jirto iyo xilliga aanay jirin labada maxaan ku dhahdaa waa kala jaad waxay la tahay dadaal ku filan inuu banku sameeyo lacagtaas arka si uu hadda jeer dheelitirka lacagta u ilaaliyo ugu dambeyn su-aasha ugu dambaysa weydiinaya ma la odhan karaa SNM waxay u guuleysatay military ahaan laakiin siyaasad ahaan waa laga guuleystay mar haddii aad soo weydiin waddanka military ahaan way u guuleysato waxay meesha ka saartay nidaamkii meesha ka jiray laakiin siyaasad ahaan waa laga guuleysto aqoonsiga keeni ka dhigay siyaasi ahaanna way guuleysatay ciidan ahaanna way guuleysatay waayo SNM waxay la dagaalamasay taliskii maxamed saabir xorriyadda dowlad soo noqoshadana guusheeda iyo fikirkeeda iyo siyaasadeeda iyadaa lahayd maalintaynu inaku Soomaaliya ka goosanay dal aqoonsigiisii sida Ethiopia oo kale taliskii Mingistaa laga riday laakiin dee dowladda Ethiopia oo maxaan ku dhahday halkeedii joogto oo adduunyadu ictiraafsan tahay bay aqaydo ictiraaf iyagu may raadinaynin sida Somaliland markaa SNM sida nin ictiraafkii Somaliland lagu istiraaqayay SNM waxay sidatay siyaasadii iyo qaabkii iyo nidaamka kala taliska lagu ridayay iyo nidaamkii ummadda Somaliland dib loogu walaaleynayo
marka اعتراف وكان لا يمكن خاتنا لكن ururkii asaga siyaasiyiinna wuu guulaystay militarina wuu guulaystay waayo qiimo badan oo adduunyada lagu sameeyeyna maxaan ku dhahdaa way jirtay qaar badan oo ka xoog badnaa oo ka qalab badnaa oo ka dhaqaalo badnaa ayaa meelba gaari kari waayay SSDF baa maxaan ku dhahdaa ka mid ah siyaasadiisa iyo militarigiisu haddaan wada soconna ma ay guulaystay waddo kaloo dagaal ahayn oo Soomaaliya lagu xoreeyay ma jirtaa haddana adduunka